الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن ابن عمر رضي الله عنهما إلهي كره من نقضي قال وحي إذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحقبتي من كبي نبي وحقبتي لبضي قرب وقبتي فقال مركز وحي إذا كن وحضها في الدنيا كأنك أدق غريب مد قريب وحوي الدنيا قريب كوا أو عابر السبيل مد وحوي جدك قد بيه ودق قوينية ساسو كلا الدنيا كاهو رواه البخاري. إمام البخاري بحديث كان صوص صاريا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحليه هي عبد الله بن عمر النبي قال وحي قبطي لبدا قرب مركز وحي ugu yiraahday dunyada waxadaha ka ahaataa sidii qof qariib oo kale qariib inaad ku tahay qariibku waa maxay waa qof beledkiisii beled aan ahayn jooga wadan kale jooga socdaal ah qofkaasi kuma habsaamayo dadka dhismahooda iyo waxa weeye magaaladoodaas iyo inuu maxaa yeelay waaba safarba adduunyadii marka safar baa laga yahay wax lagu mashquulo maaha waa meel laga sahay qaato waa aakhiro looga sahay qaato kan kala ka sii daran ama mase caabiru sabiilin mid wada goyn iyo kale ah qof laamiga ka gudbayay laamiga ma dhex istaagayo daarna ka dhisan maayo maxaa yeelay waa laami wado way hadduu istaago waxa la oranayaa maxaa ku taagayo dadka ka qabanayo qof xanuunsan baa leeyahay wadada laga leexiyo adduunyadii marka nabi maxamed saas ku tusaalay qof laami ka gudbayo kale way oo jid goynaya jidka qofkaasi daarna ka dhisan maayo istaagina maayo toos uga gudbaya marka waa maxay adduunyada tan toos uga soo gudba amal saalix ah samayso oo ilaahay subhanahu wa ta'ala la hortagtid aakhirada ku badbaadid mafhuumku inta way saasuu nabigu labada shay oo inuu naqaano inuu ku tashbiihiyay adduunyaduna ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa qiimo badan kama laha haddii qiimo badan ka leedahay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi ayaa la siin lahaa adduunyada iskaga waari lahaa maxaa yeelay laakiin adduunyadu kanaaca garabkeed ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala kama ah kun waxaad ahaataa fi dunya adduunyada kaanaka adigu qariibun qof qariibo oo ama saabiru sabiin qof wada ka gudbaya rawahu al-bukhari imam al-bukhari baa warinaya fi sahihi ku warinaya wa yani ibn umar radiyallahu anhu ma ilaahay karanada qaal wuxuu yiraahdaa qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa nabigu wuxuu yiraahdaa dhulmigu iyo gardarradu dhulumaatun waa mugdiyo yawmal qiyaamati maalinka qiyaamah dhulmigu maalinka qiyaamah wuxuu noqonayaa waxa weeye mugdiyo isagoo ah buu iimaanaya marka maxaa laga wadaa dhulmiga iska ilaali oo dadka ha dhulmin maxaa yeelay dhulmigu ma fiicna ilaahay subhanahu wa ta'ala ma jacala dhulmiga naftiisu dhulmiga waa ka xarimay wajacaltu baynakum muharrama dhaxdina waxaan ka yeelay ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiis qudsi ku yiri mid muharrama hays dhulminina عن ابن عمر رضي الله عنهما إلهي كره النقضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيدا المسلم قفك مسلم كا من روح ويسلم أي كان نبت قرانين المسلمون المسلمين من لسانه عرب كيسي ويده عرب كيسي قعنتي سوقفك إسلام والمسلمين كم مغان قلان روح عصا مسلم خالصة والمهاجر قفك مهاجر كا وهجرودين من ويهاجر من هجر الروح كهجرودي ويمانها الله عنه وحيلا سبحانه وتعالى وكرر wax ilaahay ka reebay qofka muhaajirka oo waxa laga wada oo qofka ka tagay wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka reebay muslimka dhabtaana waxa weeye qofka ka nabad helaan carabkiisa iyo waxa weeye gacantiisa yaani dadka wax kama sheego ma xanto hadana dadka ma dhibo gacmaha kuma dhibo waaya عن ابن عمر رضي الله عنهما إلهي كرهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيراده كل مسكر شيء كسو مسكر أو حسر قامية ومانك الدورية خمر وخمر وكل مسكر شيء كسو مانك الدورية وقف كان حسكيسي وحرمة حرام ويرواه المسلم حديث كان النبي يقول حنو كل شيء قاعدة كلية وبحنا يا وحكستو وقفك مانكيس التراه وقفكي مركو وحا استعماله معني مانكيسي وحكسي النقونا يانين ومير دوريني waxaasi waa khamro wax kasto waxa weey magacu doona hal ahaade wax sarqaamiya isaguna waa xaraam sharaab ha ahaado shaaha ha ahaado wuxuu doona ha ahaade wixii qofka kan markuu isagu isticmaalo uu ku sarqaamayo dawo kale uu isticmaalayo ha ahaado daroogadan inuu naqaan qaadka iyo waxyaalaha la midka ha ahaado wax kasto qofka waxa weeye sarqaamiya waa xaraam weey nabigu marka wuxuu leeyahay kullu muskirin shay kasto muskira oo waxa weey maanka tira
qofka waxa weeye sarqaamiya khamrun waa khamri wa kullu muskirin qofkas wax kastoo qofka murqaamiyo oo sarqaamiya xaraamun waa xaaraan rawahu muslim can ibni cumar radiallahu canhuma ilaahay ka rahnooday qaala qaala rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhaahday waxa weeye abarul biri qofka dadka waxa weeye ugu baarinimo badani baarinimada qofka ugu baarinimo badan an yasila waa inuu xiriiriyo arrajulu ruuxu wudda abiihi cidda aabihiis iyo waxa weeye ay isticlaayeen rawahu muslim maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa nabigu wuxuu leeyahay qofkii dadka ugu baari badan oo waxa weeye dee darajadii ugu sarreysa oo baarinimada jooga waa ruuxa waxa weeye xiriiriya qof isaga waxa weeye uu aabihii isticlaayeen aabihii keliyana ma aynu hooyadiina taabic bay u tahayo yani qof ay waalidiintiis adig waalidka qofkii asxaabta ahaayeen aabaha waxa weeye ciddii asxaabta ahaayeen hooyada ciddii asxaabta ahaayeen suxbadii waalidkan ka dhaxaysay waxa weeye darti inuu u xiriiriyo oo u jeclaado ruuxaas baa waxa weeye birigii darajadii ugu sarreysay abarul biriga waxa weeye kan ugu sarreeya an yasila waa inuu xiriiriyo arrajulu qofku wudda abiihi cidday waxa weeye waalidkiis isjeclaayeen aabihii iyo hooyadii cidday waxa weeye suxbo wadaageen oo asxaab ahaayeen ruuxu inuu xiriiriyo oo ka warqabo oo u xiriiriyo maadaama macrifo ka dhaxaysay aabahay iyo waxa weeye waalidkiis ay ka dhaxaysay usaa u xiriiriyo ruuxaasaa baari ah waaye cafwan عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما الله كره النقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحي هذا لا حسد مجره إلا في اثنتين لبموي رجل نين آتاه الله إلهي وسيا قرآن وسيي فهو مركا يسوي يتلوه أخرنا يا قرآنك أنا الليل هبينك ساعده وأنا النهار مالك ساعده بآخرنا ورجل قف آتاه الله إلهي وسيي مال وسيي فهو يسوي ينفقه بحنايا أنا الليل هبينك ساعده وأنا النهار مالك وحوي ساعده متفق عليه نبي قال وحنا كشيء صلوات ربي وسلامه عليه حديث كان نقاعدنا نبي وحي الحسد مجرو حسد كان لقاها الله يعني قلت إن ليس حسداي ولا بقف إيس حسدانين حسد كله ونقضايو مدورته بابا حرام بقف كينات ku xasday qofka in nimca ilaahay qofka kan siiyay inuu leeyahay nicmada ilaahay ka zuul u jecel yahay qofka in nicmadu ka zuujo kaas lama ogola isagu waa xaraam kana tamani baa la yiraahdaayo qof baad arkaysaa maal badan hadana maalka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka raaliyaa ku bixinaya markaas shakhsiga wuxuu tamaninaya oo jeclaysanaya sida ruuxaas ilaahu waa maal u siisay hadan u heli lahaa saas oo kale uu bixinaya marka xasad ma jiro ilaa laba shay mooyee qof ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan uu siiyay xasadka laga hadlayo macna waa timandigi ilaa qof ilaahay uu subhanahu wa ta'ala quraan siiyay quraankan akhrinaya habeen iyo maalin ba akhrinaya yama qof ilaahay maal siiyay isaguna bixinaya aw juhdi ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay oo banaanad ku bixinaya labada qof baa la tabanin karaa oo maxaad oranaysaa ilaahu iyagoo kale hadaan ahaan la asaasan yeeli la ama qofku wuxuu jeclaysanaya qofkaas oo kale inuu noqdo laakiin ma jecla qofkan in nicmadu ka zuujo maal badan baa ilaahay siiyay maalka inuu ka zuujo ilaahay aqoon iyo quraan iyo diin buu baray diintu inay ka zuujo mar laakiin wuxuu leeyahay wuxuu taminay isagoo kale inuu noqdo saas laga wada la xasad ma jiro illa fi ithnatayn laba mooyee rajulun qof waaye waa nin oo de gabadhina waxa way dadigina taabic uu yahay rajulun qof iska aataahu Allah ilaahay uu siiyay quraan uu siiyay fahuwa isagu yatluuhu akrinaya quraankii ana al-layli habeenka saacadihiisa wa ana an-nahari habeenka waxa way maalinta saacadaheed ورجل يقف آتاه الله إلهي وسيء مالا مال وسيء فهو يسوي ينفقه بحين يمالكي أنا